وما تنتين راديو مقدشو تاكي واحد بوليس كلوشو ريبوت لي لو عنده ولا ومسكوا لي meelu dhow guriga ay deganayeen waxa ku baxay ciidanka booliiska Soomaaliyeed goobta tagay waxayna ku arkeen labadii cunugoo mid kamid ah ay baaqoorta ugu xiran tahay afkoodana ay ka buuxdo ciid tira badan oo lagu aburiyay marka waxaan leenahay horta Ilaahay uu naxariisto waxaana kiiskaas loo soo qabtay adeerka hooyadood qabay iyo hooyadii dhashay labada caruur ah oo hadda ay ku jiraan gacanta hogaanka baarista dambiyada deegaanka falku ka dhacay waa halkee dadka deegaanku maxay idin sheegeen sida u dhacay area weydow meel ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah oo ay ku noolaayeen labada cunug hooyadooda iyo adeerkii qabayba waayahay wax ma laga ogyahay sababta falkan u dhacay wallahi hadda baarista socota laakiin waa kiis una ka marnayn qoyska caruurta dhalay sababtoo waxay cadeynaysaa labada caruur ah in la deldelay oo la eejiyay dawladna afka carar looga shubay ayagoo eejisan si aysan neefta ugu xiranto waa dhacdo aan weligeena ku arkin Soomaaliya waa dhacdo aad u xanuun badan waa dhacdo aan ka gubanayno waxa meesha aan ku aragnay wax la arki kara ma ahan marka waa sababta nagu kaliftay inaan hooyada iyo adeerkii dhalayba in area la deganaa tira badan aan xog wareysan inta baan isugu keenno hogaanka baarista dambiyada waana dhacdooyinka beriyaan dambe magaalada Muqdisho ku soo gaanaya caruurta yaryar la deldelo marka waa arin aan u baahanahay in wixii hadda ka dambeeyo wacyigelin badan ay culimada iyo bulshada Soomaaliyeed goob kasta ay joogaan laga sameeyo kiiskaana baaristiisa wali qaybaha farsamayaqaanada ee hogaanka baarista dambiyada gacanta ku haya